وحوينا وحوينا نقول فرحة إن صار بيعي أي تسوق الكلام بوك بوك ما يجي سواء هذا مين لا محتوي سؤال سويدي تلو حوي سامعت فربنا أبوك كم وقتها مبوك عليه مسمى عالي مسمى كباري حسبان إذا كان يبين طالع وكل سؤال كجواب الدواء إن قف بشدة تحليل سامعين فربنا كل يبوك قرو مر بدال كيس يكتدي سقف نمو أيه موجنا سا مر لوانا وحن موجنا سا أما يفتمنا سا أما فرصة لو تاي أنت كلام لا تدخل كل العام وحويان كعصب رسول الله وحويان وحبها إلى الرطيلو أنا وحسي أغفي عمل سكولة هاي وقت يقوم بالحتوية الشعوبي يقول له لا تقول سامين تقلنا أيها أنا وسيلك وفاقيتها بدوني تلقاها تلقى كاها أيها أنا وسيلك قوانين أيها نحس كلنا مركا كوسي سعودنا سيدي والوضع كيلي حكيكي فبو حكا كلام معي محا وقت يستقل من نفسها لكن دوركي وكلها حدقها waxay door muuqda aad u nolol soo shaqeeyay taasna waxay ku tusaysaa inuu yahay bulshada qiimaheeda kala duwan qof ku jajaba dhinac kale marka aan ka eego buuggan inkastoo aan waqti badan u helin suugaan fara badan oo xisi laftigiisa uu sameeyaa ku jirta malaha odayga marka ay suugaan baa ku jirta سويت كنت تيجي كأي جونا فرصة تعالى أنا وقرنا ما يحسبوا كرتي بداية حسسنا وياي أنت بقى وحسوكي كذا كم مرة لكن محلهم هجامين مرة هجامية هم وجهه مقعي محي هذين أنت تركيب وطني كاي لكن هجامي هو كل شيء يسوع دنوه كذا حركته أنت بدنا يوم كسارة waxay dadkiisu u baahan yihiin buugaagta kale ee dhaxalreeb ee laga sugayay malaa waxaan filayaa labada kale madaxtooyada wadani inay ka mid noqon karaan hal daqiiqaad kamsa usii halkan daqiiqo waxaan ka hadlayaa somaliland markaan ku celceliyo waxaan filayaa in si qalbiyan aan u leedahay صدح سوق بلد سوق وسوق حوله سوق وسوق محكمة سوق صدح حالنا وحوي سوق الرك سوق حوله ما كان ركوب وقيد قيادة كتاعه وحزرنا نسعى ورياح مش هو السكول لكن كل الظهر ما هو بحا مو قيسنا معناتها مسؤول عن بري وبحاجة لسوتها سوق الله نواكن محكمة ده هذا ممكن يجيه laba habood ama laba siyaabood baa loo dhamaataa inuu qofku dhinto oo kiiskiisa uu aakhiro hayaabo iyo in uu lacag bixiyo suuqa saddexaadna waa suuqa dhulka nolosheedii miyiga fiicneedan ku asturnayd markii aynu ka dhimanay ta magaalada aqoon ahaan kumaynaan dabaqin waxaa siiray dhaqankeedii diinteedii iyo dimuqraadiyadeedii marka halkii geelinu ku jiro dhulku noo galay suuqa xoolaha waynu u baahannahay labada suuqe kale weli waa mushkilad somaliland hor taala nin kasta oo siyaasiya oo doonaya inuu wax noqdana macnaheedu maaha inuu kursigun arko laakiin waa in qorshe lahaada haddii hogaamiyaha ama aan siyaasigu lahayn qorshe ka bahan kursiga qabso nolosha wuxuu damaran qaadi karaa keliyaata inta ku xeran dhaqaalahooda لكن مركو قامي وارتيا يعني وحنا ما قال كلام نوشي ومديسة والسلام